waxaan leeyahay wasiir dowladda Puntland deegaanka waa ka gaabaysan runtii doodishaan aan naga qaadaan haddaynu nahay ummadda mandaqada degan aan wax ku tashan dowladda federaalka hadda ummadda u dhaxaysana cabashadeena aan u geysan laakiin Puntland in wax ka jiraan malayn maayo si kulul baynu la hadlaynaa waxba dhowran mayno deegaankeenna wax lagu bartay inuu hadalka dhowran waxba dhowran mayno dhambaal waa faalooyin maqal iyo muuqaal ah barnaamijkan waxaa soo diyaarisay xarunta hadaf ee cilmi baarista iyo horumarinta dad badan ayaa u arka kumanaanka qof ee u soo baxa soo dhaweynta madaxda Puntland marka ay imanayaan deegaanada gobolka Sanaag in ay ka turjumayso baahida dadka deegaanka u qabaan in ay helaan dawladnimo maamul iyo inay raadinayaan cid wax kala qabata dhibaatooyinka iyo khataraha ku geedaaman hase yeeshee safaradaas madaxda sare ku yimaadaan gobolku xal ma u noqotaa filashada bulshadaas halka uu lahaa wasiirku dawladda diyaar baa u nahay laakiin iyada baa aan laanahay wax qabadkeeda aan laanahay dhibaatooyin dhan baa jira waxay ka qabanayaan ma hayno wax qabadkooda ma hayno magaalada gudaheeda wax laga qabto tarafyadeeda wax laga qabto wasiir dawladda hal la helo diyaar baa u nahay hal la helo ma hayno anagu inkasta oo dadka deegaanku maamulka Puntland wax ka dhisteen haddana marka la fiiriyo ku qanacsanaanta bulshada muuqaalka dawladnimo ee gobolka ka jira hoggaanka iyo xilalka iyo cabashada joogtada ah ee bulshadu ka qabaan adeegyadii la rabay saami qaybsiga iyo guud ahaan hanaanka dawladnimo waxaa soo baxaya su'aalo badan oo u baahan in dhinacyo badan laga fiiriyo sida kow maxaa keenay in dawladda Puntland ay qaadan weydo mas'uuliyadda ka saaran dhammaan dhulka gobolka Sanaag oo bulshada deegaankaas lagu eegto duruufahooda labo maxaa ka dhigay in 25 sano kadib bulshadu ka cabato adeega dawladda laga rabay maxaa inay ka qorshaa ka Puntland ahaan gobolka Sanaag anoo dowladda ka mid ah oo golaha deegaanka degmada ku jira waxaan leeyahay wasiir dowladda Puntland deegaanka waa ka gaabaysan runtii haddana waxaa moodaa ficilkooda iyo afkooda inaan islahayn dowladda Puntland saddex ma siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta gobolka Sanaag ka soo jeeda ayaan qaadan kaalintoodii oo hakraday dhulkii ay matalayeen waxa dhacda magacaabida oo kale halkan waxay nala joogaa xildhibaano iyo wasiiro waxa dhacday in wasiiradii iyo xildhibaanada lahaa oo haddana lahaa agaasimayaasha group noocaas oo kale magacaabitaanku ku soo baxo laakiin bulsho kale oo aan waxba lahayn aan meesha aan waxba ku soo bagin sida darteed cadaalad darrada iyo nidaamkayada tan wadanka ka jira ee 4.5 uu kamid yahay doorashada dadban iyo nidaamka isla xisaabtan la'aanta ka jirta ayaa keentay in wadankii maanta si kala furfumo oo qolo walba ay baadi goobto qaab ay ku noolaan lahayd ama ay qaab ay jiritaankeeda ku xaqiijin lahayd afar ma nidaamka doorasho iyo kan isla xisaabtan ee Puntland ayaa keenay dayacaas qodobka ugu muhiimsan inta badan laga hadlay waxa weeye waxa loo yahay afka qaad la yiraahdo accountability-ga isla xisaabtan dhab horta meesha ma ka jira weeye shan ma la joogaa xilligii si dhab ah loola xisaabtami lahaa nidaamka Puntland weli ma maqasheen reer maakhir Puntland la xisaabtamaya xitaa wax yani ceebaha dhaca ama caadooyinka aan ceeb ballo arag iska dhaca waxa weeyaan maxaad meeshii laga dooni lahaa wasiir dheeri ah baa wasiirkii jooga baa lagu qabsadaa booskiisii lix suuragal ma tahay in bulshada maakhir dib u fiiriso mustaqbalkeeda siyaasadeed oo ka tashato aayaheeda kana fikirto sida ugu macquulsan ee deegaankani uga hana qaadi lahayd hanaanka dawladnimo oo dhammaystiran taa qura maahe milxa waxay noo soo jeedinaysaa inaynu dhulkeena eegno oo indhaheena isticmaalo adeerayaalow dhalinyaro ilaahay ka yaaba indhaha fura wadankan hadaa idinkuna indhaha isku qabsataan idinkuna indho u tayin xagu aadaya xagee la aadaya gidaaradaas madaxa la dhacaya Soomaa nagala qayb qaado aragtiyaha ku saabsan doodan oo fariintaada iyadoo oo muuqaal ama maqal ah noogu reeb nambarada shaashada kaaga muuqda waa barnaamijkeeni dhambaal taxanahan waxaan ku eegaynaa hayaanka siyaasadeed ee bulshada reer maakhir